waxaa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug soo gaaray wafdi uu hogaaminayo Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ah gudoomiyaha dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. wafdiga ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Maha Salaad iyo xildhibaan Warsame, xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid iyo xildhibaan Maha Salaad oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka warbixiyeen ujeedka safarkooda iyagoo baaq u diray dowladda dhexe ee Soomaaliya. anaga safarkana wuxuu ku qotomay oo maanta aan u nimid magaalada dibkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo 14kii bishan in aan runtii dadka deegaankana uga tacsiyeyno dibku gaaray in aan u tacsiyeyno dadkii mas'uulka ku ahaana la marsiyo cadaaladda si arintan aysan ugu soo laaban deegaankan dadka wax lagu gaarsiiyay dad reer Galmudug weeye Galmudug ay ka soo jeedaan degan yihiin ma qabo marka sida loo takoorayo loo leeyahay deegaanka kale ka soo jeedaan aniga ma qabo dadkaas waa dad reer Galmudug cadaaladda Galmudug ay u baahan yihiin mas'uuliyiinta Galmudug ayaana mas'uuliyadu ka saaran tahay dadkii dibkaas u geystay xaqii ay ka galeen dadkaas in laga jaaziyo intaas kadib waxaan rabaa waxaan jeclahay inaan wax yar ka iraahdo xildhibaanada dabcan deegaankan ka soo jeeda ayaan nahay Galmudug maalmahan Galmudug waxaa laga sheegay runtii caqabado ka soo laalaabanaya oo maamulka dhexdiisa ha noqoto waxyaabaha hadda ka soo cusboonaaday oo runtii intii wada joogtay ayada ruuxeeda la leeyahay waxa suuragal khilaaf cusub inuu ka dhex yimaado Galmudug ani waxaan kamid ahaa dadkii runtii habeen iyo maalinba u soo jeeday sidii maamul looga dhisi lahaa dhib fara badan ayaan ka soo marnay 3 maamul oo kala joogay Gaalkacyo maanta aan joogno Cadaado iyo Dhuusamareeb iyo deegaanada kale qaarna xorka ay yihiin qaarna cadow haysto dadka ka soo jeeda iyo maamuladii deegaanada ka jiray sidii la isku keeni lahaa oo midnimo iyo maamul ay ku midaysan yihiin dadka deegaanka ay u heli lahaayeen muddo 12 bilood ayaan u fadhinay markii laga soo gudbay heshiiskii Muqdisho lagu saxiixay oo muddo 8 bilood qaatay Galmudug markii aan u soo wareegnay Dhuusamareeb iyo Cadaado muddo 12 bilood ayaan u fadhinay sidii maamulkaas loo yigleeli lahaa 12 bilood ayaa ku heshiiyay maamul ku dhistay haddana maanta nidaamka Galmudug ee jira uu ku dhisay waxaan rabaa marka Galmudug khilaaf ayaa ka jira qof oo hadda ka qarsoon yahay lama arko khilaafkeedu marka wuxuu u baahan yahay in inta la iskaga yimaado oo dib heshiisiin loo furo oo dadka aan calooshooda la isku furo waxa la kala tabanaya la xalliyo kadib loo gudbo sidii doorasho dadku ay iskaga ra'yi ka yihiin maamulka jira ayadoon la garab maraynin loo gaari lahayo Galmudug nidaamkeedii u dhisan sidii loogu heshiiyo Galmudug waxay doorasho ku gaari kartaa ama dadkeeda la isku wadi karaa gogol dab heshiisiineed oo madaxda Galmudug iyo beelihii 12 ka ahaayoo dhista qayb ay ka yihiin iskulana socdaan aysan ayagu iskala soo horjeedin oo qolo gooni wax u jiidanayda aysan jirin sida hadda nidaamka uu dhigayana dastuurka dawladda federaalka ay ku dhisantahay ee ku meel gaarka ah anagu aan haysan ayaa maamulku marka uu dhismo mas'uuliyadiisa dhismaha iyo isu keenista dadka iyo dhigidda gogasha iyo qabashada doorashooyinka mas'uulka ah dawladda federaalkana waxay ku leedahay dowr fududayna dowr ay dadka wax ugu meerida ma lahan horta taas la ogaado way madaxda dawladda federaalka Galmudug guri iyo gaari qof leeyahay ma aha waa maamul ay ku heshiiyeen 12 beelood oo deegaankan degan madax la doortayna leh waxaan qabnaa marka on ka codsanaynaa u soo jeedinaynaa inay u hoggaansamaan shuruucda dalka u yaala kan dawladda federaalka ay ku dhisan tahay iyo kuwa dawlad goboleedyada ay ku dhisan qayb ay ka yihiin oo faragelinta Galmudug laga dhaafo. Maxamed Cabdiraxmaan Soomaali TV-ga caalamiga CNA xaruntiisa Gaalkacyo.